sheegayaan in ciidamada isugu jira kumaandoosta xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamo cadaan ah oo markaasi maalmahan guluf dagaal ka waday koonfurta Mudug ay dib ugu laabteen deegaanadii ay ka soo duuleen markii hore. Sida ay sheegayaan wararka, ciidamada ayaa qorshahoodu wuxuu ahaa in ay duulaan ku qaadaan xagga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug halkaas oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada oo maalmo ka hor dagaal kula galay Al-Shabaab duleedka deegaanka Camaara ay haatan halkaasi ku laabteen isla markaana ay u jihaysteen dhinaca magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wararku waxay sidoo kale intaasi ku darayaan in ciidamada ay qayb ka ahaayeen kuwa dowlad goboleedka Puntland waxaana taageerayay diyaarado dagaal oo dul heehaabayay deegaanka Camaara iyo weliba sidoo kale Ceel Cabdi. Gudoomiyaha degmada Camaara ninka lagu magacaabo Yuusuf Salaad Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadan ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Gaalkacyo iyo weliba degmada kale ee Hobyo, isagoo hadalkiisa intaasi ku daray inay jiraan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland. Weli si rasmi ah looma oga sababaha keenay in ciidamadani ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen.